wax badan oo shirkada lagu sheego oo maanta wadankeena marba soo ifbaxa oo shirkadana aan ahayn anigu aan u aqaano inay dad qowleysato dadka lacagta ka urursada markiiba meelaha ay ku khilaafsan yihiin axkaamtii الاحكام الماليه الفقهيه taas ayaa kamida imika maalmaha waxa socotay magaceedu waa ban ilaahay mid dad badan ay weydiiyeen oo qofka la oranayo salaam waxad keentaa 1200 200 waxa weeyaan waa diiwaan gelin kunkana waa lagu shaqeynaya طيب waxaanad helaysaa macaash bil 40 cisho gudahood waxaad helaysaa macaash intaa leeg macaash xadidan 300 forex bay ka mid tahay magac kale lagu sheegay macaash go-aan baad helaysaa hadduu khasaaro dhacana aduu khasaaraha shaqo kuma lihid kunkaaga weligii baa la khasaaro sidii buu taagay maalinta dalbatay isagii baa lagu siinaya waxaan ku dhalinyarta qaarkood maxay kaga shaqeynayaan talow waliba macaashka waxay ku dhahaan 100% 40 cisho gudahood ba waxaad ku helaysaa macaash 100% kunkii $1 oo kale aad ka helaysaa 40 cisho gudahood waxaan ku dhahay hada laa yuqal intaan sharci iyo fiqi ba la gaarin adduunyada halkay ka jirtaa macaash 100% waliba khilaal sana maaha khilaal 40 يوم 40 maalmood gudahood oo khasaarana aanu jirinba waxaan ku maxay kaga shaqeynayaan noomay sheegay waxay kaga shaqeynayaan dadka lacagtooda inta laga qaadun baa loo yara qurbaawun markay soo yaraatana waa laga baxsadaa marar badan wayna soo martay taadii baa iyo tii dadka laga guruba wax lagaga gorgoroocaya markay soo yaraatana inta hadhay baa lala baxsanaya lala tagaya loo xasina xaqiiqaha waa iska muuqataa oo tabti waxa nin odaya oo lacag waxa weey la gurguuranaya ayaa nin ku wuri walaal lacagtana haystaa talo maxayno agaan kaga shaqeeya soo ana ku haya meelaad maalintii faa'iideysa $100 10 kun hadaad ii dhibto maalintii $100 baan ku keenay walaal ilaahay khayr ha ku siiye qaado ku shaqee 10kii kubu meel dhigay 100 buu ka siiba odaygu u geeyaa 100 la isaga ka siibto ku buraadsada markay soo yaraatay buu ku yiri adeer macaashku yaraaday konton baa imika soo baxa konton buu isagu kala baxa odaygiina konton buu geeya markay dhamaatayna odaygii waa soo ashkatay waa ninkan soo fadhiisiyo iga qabto la soo fadhiisi wuxuu yiri miyaanu aqli lahayn isagu xagee ka jirtaa meesha maalintii $100 laga faa'iideeyo 10 kun wala agtiisuun baan ayuma siinayay ma xisaabiyo intuu qabo iga jara oo waxa uu haray taanu qoro warqad marka lacag helaan siiye marka dad fara badan rikood waa nooca weey